guulaystayaalo beedha gola dowradii sare intay gaari karayaan guulaystayaalo beedha gola dowradii sare intay gaari karayaan. بسم الله الرحمن الرحيم waxaa suurtagal inoo noqotay inaan wareysi gaar aan la yeelano rugcadaad siyaasi ah hogaamiye weyn oo ummadda Soomaaliyeed magacii maamuus ku leh Axmed Salebaan Cabdalla oo loo yaqaano Dafle waxa uu ka mid ahaa shantii sare ee golaha sare ee kacaanka ee muddo 22 sano hogaaminaya waddanka Soomaaliya waxa uu ku nool yahay magaalada Brussels ee waddanka Belgiumka suurtagal ayay noqotay inaan la kulmo oo nolosha aan ku qaabilo أحمد سلبان waxaan dabcan waxaan filayaa markii xukuumaddu ay burbureysay anigu aad u daayar in xukuumaddu ay burburtay marka nasiib iyo sharaf ay tahay inaan kula kulmo marka hore waan mahadsan Cabdiraxmaan Xudayfa la yiraahdaa telefishinka qaranka ayaan u shaqeeyaa waan mahadsan tahay Axmed waxaad faahfaahin naga siisaa halkan ayaad ku nooshahay waxaad markuu hore faahfaahin naga siisaa noloshaada iyo halka aad ku dambeysay iyo sida hadda xaaladaadu ay tahay xaaladeedu waxa weeyaan waa laaji wax kale ma aha haye laaji waxaad ula jeedaa soo galooti aad tahay soo galooti baan ahay waa gartay wadani Soomaali baan ahay waa gartay ilaa iminka wadaniyadoodii ma qaadan mana qaadanayo waa gartay oo macnaha baasaboorkoodii ma qaadan keenay baan haystaa waa gartay kii Soomaali ha wata Axmed waxaad inoogaga warantaa sababaha aad ku diiday in baasaboorkii waddankii aad ku noolayd muddo 20 sano ka badan maxay tahay waxa weeyaan waxaan jinsiyadeedan horta jecelahay waa gar jinsiyad kale inaan ku darana ma doonayo markaad rabtay inaad socdaashid qaabkee u socdaashaa marka keenan ku socdaa waa gartay socodkaygu ma badna laakiin marka aan socdo keenan ku socdaa أحمد دفلة أيال قوم مقعبة وحاد هيد شنتي سرة قولها سرة وحاد صومرت نقول آدو في عن أو قيمة بدن أيال صومرتي هذا مركز أدب في رسوائه آد كجرتي يوايا هذا الوجر يودن كي سيد النقضي محاسب رقمه وحوين بقى الحياة وأدوكتها ما شرح كررنتي سيد الودن في النقضي waa wax laga sinaxaa dad sidaa isu galay ilaa inaga isu galay dad sidaa isu galay oo liidnimada heerkaas isu daadajiyay waxa weeyaan waa wax laga naxaa runtii marka inaga tahay dadka kalena de waa in la yaaban yihiin adigoo raalli ah qaran burburkii waddanka Soomaaliya ka dhacay ma isleedahay sabab ayaa kula heeday waan ku lahayn sabab maxay sababtaa waxaan ugu lahayn muddadaanu dheeraysan haye waxaan islaahay waxbaad kordhinaysaan waana kordhinay runtii haye laakiin dadku waa nala garan waayay waa gartay marka waxa loo baahnaa in sidaanu markii dambe wadnay si fiican aanu marka horeysa ku dhaqaaqnaabay ahayd waa gartay markii dambe waxaanu samaynay constitution baanu samaynay waxaanu samaynay constitution aqbalaya axsaab badan iyo baratan maxaan ku idhaahdaa ummadeed oo loo baratamo siyaasadda waddanka waa tahay axmedow marka taas waxay ahayd 2 sannadood ugu dambeeyay baan hawshaa galnay waa gartay waxay ahayd 5 sannadood iyo muddo ka horeysaba in hawshaas macnaha waxaad rabteen inaa xukuumadda aad ka degtaan oo aad shacabka talada aad ku wareejisaan annagu inaanu ka degno oo ku wareejino maahe inaanu annagu dadkii ka mid ah nala baratamo waa gartay waa tahay marka dad badan waxaad moodaa in ninkii doonayaana ka dego waa gartay adigu shakhsiyan maxaa doonaysa markaas anigu inaan baratamo baan doonayay waa gartay 22 sano kadib maxaa dhacay marka waxa dhacay de waxa aragteen haye waxa dhacay burbur waxa dhacay dadkii oo isnacay waxa dhacay dhiig badan oo shumay
waxaa dhacay maxaan ku idhaahdaa waddankii oo maxaan ku idhaahdaa maanta heerkaa taagan uu aad iyo aad u baaba'ay. xabaddii markay bilaabanaysa halkay ku sugnayd adigu? xamar baan ku sugnaa. haye qaabkay uga soo baxday? waxaan kaga soo baxay anigoo maxaan ku idhaahdaa socdo oo dee maxaan ku idhahdaa dhabbada raacaya yaan kaga soo baxay. waa gar yaa kula socda marka? oo u bareeray haddii lay dilayana ha lay dilo, haddii kalena aan nabad galo oo baxo oo aan ilaahayna waa ay nabadgeliyey. dad badan oo adiga kula mid ahaa sida xuseen kulmiye waddankii ayuu ku haray. adigu markaa marna kuu suurtageli weydo inaad waddankii aad ku sii nagaato? maya markaa haye waxaa shaqaynayey qabyaalad baa shaqaynaysay markaa oo maxaan ku idhaahdaa wax walba ka guud martay. dabadeed qabyaaladii ninna waxay siisay inuu joogi karo oo dadkiisii dhinac ka raacay dhibaatada waday kama raacinay. markii dambe waa la dhacay oo waa la xumeeyey oo waa la fara xumeeyey runtii. waa gartay isagii iyo odayaashii kale ku hadhay. waa gartay laakiin markii hore waxay islahaayeen cidina idinma taaban karto. waa sida ha dadka qaarna waxay islahaayeen ma nabadgelaysaan haddii aad sii joogtaan. si fiican. dabadeedna way dhaqaaqeen. waa gartay ha adigu marka halkee qabatay? kismaayo. waa gartay deeto dabadeed waddankan dibadda uga baxay. waa tahay marka axmed waxaad noo sheegtay intaasay dhacday. marka sababaha aad u ordayseen dadka idin bursanayay ma waxaad u haysateen inay idin dilayaan mise waddankuun isaga daaya un idinku ahayd? maya maxaad uga baxsanayseen? haddiina la helo rag badan baana dili lahaa. waa gartay waa tahay markaa oo nalaga adkaado hadda. aad iyo aad annagu qudhidayadu dhulka ismaanu dhigneen. waa tahay marka laakiin nalaga adkaado. ha madaxdii talada waxaanu se garannay markii hore inaanu bal dawladdii bal horta u sii dayno dadka raba dawladda inay xukumaan. waa tahay marka madaxdiinni soo garanaysid iyagiina waa isdileen oo kuma heshiin waaye. aad iyo aad madaxdiinnii marka aad soo baxdeen dib ma isku raadsateen bal si aad isku xal waraysataan? maya maxay ku dhici weyday? waxay ku dhici weyday nin waliba wuxuu ka dhacay meel. waa gar maqrib iyo maqshir baanu ka dhacnay. waa gar aniga halkanaan joogaa nin ila jooga oo kale oo raggii madaxda ahaa si fiican ma jiro. waa gar nin walibana sidaasuu meel u tegi keliyey. waa sida marka 20 sano kadib ma is leedahay soomaaliya waxa ay ku socon kartaa xukun military ah mar haddii qabyaaladnimo ay ku socon waday oo diintii iminka ugu dambaysay la yimid oo la ismaamuli kari waayey? soomaali ma is leedahay waxaan xukun military ahan waxba loogama qaban kara xilligan? maya. maxaa lagu xukumi karaa soomaaliya? soomaaliya waxay ka tashataa baa lagu xukumi karaa. waa gar waa sida iyadoo ha tashato. haye waa sida waa tahay sheeko yar ma noogaga sheegi kartaa qaabkii inqilaabka aad ku qabateen adigoo mahadsan? waxaan idinka sheegi karaa waddanka markan dambe uu burburay siduu noqday markii ugu horreysay yuu soo noqonayay. waa gartay dalku waa gartay xamar dhexdeedaa la isku dilaayay. waa gartay oo meyd yaalla aad ugu soo kacay ugu imanaysay maalintii. waa gartay waa xilli maaha? waxa weeyaan 68 69. waa gartay adigu markaas waxaa ahayd miya sarkaal? anu sarkaal baan ahaa military ka mid ah. waa gartay ha haye aad ugu imanaysay. haye waxa la dhacay nidaamkii dimuqraadiga ahaa ee isdoorashada ahaa. waa gartay rag baa ku shubtay. haye waxaa soo baxday buur xakaba oo cid laga soo doortay aanay jirin. waa gartay haddana kuraastii markii dambe buur xakaba rag ku fadhiyeen baarlamaanka. si fiican ha cid laga soo doortayna hadda ma jirin. haye kuwii maalintii doorashadu jirtay la dooran lahaana waa loo diiday inay isdoortaan. waa gartay meelo badan baa aan caynkaa ka duwanayn. waa gartay heerkaa ma gaadhin laakiin aan ka duwanayn. maxaa ka bedesheen marka arrintaas? yaa maxaa ka bedesheen marka aad timaadeen? waxaan ka bedelay dal dhan oo isbedelay.
ummadda soomaaliyeed way og tahay waxa aanu ka bedelay maalintii kacaanku dhashay dawladda waxaa lagu lahaa millions dayn ah waxa aanay mushahaaro siin dad dhan oo dawladda ka mid ah mashaariic dhan oo socota dadkii ka shaqaynayay way iska shaqaynayeen 9 bilood muddo ku siman mushaahar ay qaateenna ma jirin waxaasoo dhan baa jiray waxaad odhan kartaa runtii dawladnimo haykal uunbaa iska jiray dadku iska eeganaya dawladnimo ma jirin yaad odhan kartaa marka kacaanka uu yimi sanadkii ugu horreeyeyba wuxuu soo ururiyey cashuurtii baaqatay deyntiina wuu bixiyey waddankiina wuxuu u bilaabay markaa inuu horumarin u sameeyo dhabbooyinkii xamaree jajabnaa maalintaasaa la sameeyey waxaa la sameeyey dhulka dhabbooyinka xiga oo iska ahaan jiray bacaad la jiidho oo dadka lugaynaya aan damba laga gelin ma garanaysaa meesha ay marayaan oo bacaad ahayd maalintaa waxaa loo sameeyey pavement baa loo sameeyey waa sanadkii ugu horreeyey kacaanku dhashay soo garan maysid adigu kacaanka xisbi kacaanka maxaa ka ahayd maxaynaha waxaad ahayd 5tii sare golaha sare ku jirtay maxaa kaloo qaabilsanay xilalka kala duwan aad soo qabatay haddii aad nooga sheekeen karto waxaan qaabilsanaa nabad sugidda soomaaliyeed asaasideeda yaan lahaa ilaa 12 sannadood ee horena madaxban ka ahaa marka ugu dambeysay qarankeenu jabay maxaa xilkay haysay marka 12 sannadood yani dalku wuxuu ahaa nabad buu ku noolaa waxaan qabtay oo kale wasiirnimaan qabtay wasiirka waxaan qabtay maxaan ku idhaahdo qorsheynta qaranka waxaan qabtay wasiirka daakhilka waxaan ku dambeeyey markii ugu dambeysay xogayaha xisbiga ugu dambeyntii hadda waxaad ku sugan tahay waddanka Belgiumka waxaana aad ii sheegtay inaad diiday dhalashadii waddankan Belgiumka sidee hadda xaaladda Soomaaliya u aragtaa xaaladda Soomaaliya waa soo fiicnaanaysaa sida aan arko dawladda hadda jirto dagaalo ayaa ka dhacaya kooxo hubeysan oo magac diimeed wata hadda joogaan maxay ahayd way baaba'ayaan sidaan u arko waayo shacbigii waa ku kacay dawladda uun ma aha maanta ma wada necabtiin idinku ya mar haddii shacbigii nacay ma socon karaan dalkii muqdisho goorma isleedaha waad ku laaban doontaa insha allahu sanadkan ama sanadka dambe axmed dafle waxaa laga yaabaa inay dad badan ay ku daawanayaan haddii taadu ay gasho oo ay timaado ilaa naftan hebel layskuma sinin maxaa jeclaan lahayd maxay ahayd inaad Soomaali xusuus u noqoto oday ilaahay caabudaya beertiisa falanaya waxoogay dhaqaalaha wuxuu ka qaban karo ka qabanaya weliba wax soo saarka ma aha wax soo saarka iyo wax diridda anigu nin wax keena ma doonayo inaan noqdo oo hard currency-ga ummadda intuu wax ku soo iibsado keena 2 laabna ku iibiya iyo 3 laab ilaahay ka hayga ilaaliyo laakiin nin beertiisa intuu wax ka soo saaro ummaddu haddana bannaanka u dirto oo ay ka hesho hard currency ninkaas inaan noqdo maan rabaa waa maasan tahay ugu dambeyntii su-aasha ugu dambaysan kuu diinay waxa ay tahay maadaama in muddo ah Soomaali aad soo maamuleysay Soomaalina aad garanayso maxaa isu haysataa maanta Soomaalidu maxay ku taqaanaa adigu ma waxay ku haysataa in aad ka mid tahay dadkii waddanka baabi'iyey oo dhibka gaarsiiyey mise waxay ku haysataa inaad tahay wadani adigu maxaa isku haysataa Soomaalida weydii anigu waxaan isu haystaa wixii aan qaban karayay inaan qabtay oo ilaahay ugu ogyahay si fiican taasaan anigu isu haystaa mar haddii aan qabtay ya wixii aan qaban karayay intii aan joogay
maxaa layga rabaa waa tahay habeen ma saaxan jirin maalin ma joogsan jirin aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay axmed saleebaan dafle ayuu kaasi ahaa oo suurtagal ay noqotay inaan waraysi gaaray aan la sameeyo warligo nabada ebo ummado nabada ebo wanu manahi ebo wanu manahi jib ay tahay